marka goobaha kaftanka marka tagta wala dheeraha Soomaaliland waa naga dhah ma tidii ka umada ugu laadaysa marka saddex sanadood in halka deganaa waxa la raawo xildhibaanaha oo yimaada ama madax dawladda ka socota inoo timaado barkad baa koowa xubnayaha guntada xilka guud ka saaro xubnayaha guntada dhergaratadaho xubnayaha ninga caliyo gayigoodu jeceliyo kama xubnaha diiday dadkoodii aan gabiro waxa ilaahay mahadii horta barkad xaafadii uu ka soo baxay dhinacna uga mu guurin gurigiisii ku jiray inagu la jiraa xaafadda intii uu xildhibaanka noqday wax badan buu ka qabtay waxa la wixii laga caban jiro dhammaan xaafadii uu ka dabargo'ay midda labaad ardayda inankaygu horeeyo waa inta jaamacada geeyay ka mid yihiin waa wax qabadka uu qabtay barkadee uu boqolkiiba boqol ku mahadsan yahay waana ugu mahad celinaynaa midda labaad saddex sanadood in halka deganaa waxa la raawo xildhibaanaha oo yimaada ama madax dawladda ka socota inoo timaado barkad baa koowa intaynu odaynina ciidaa ka balan mid waliba wuxuu noo ballan qaaday haddana mid dib inoogu soo noqdo aynaan arag barkad isagu wuxuu boqolkiiba boqol ku mahadsan yahay isagoo inaan Kenya inuu haddana isagu maanta gartay inuu hadiyada inoo keeno dadaan cidra ka codsan isagu aqalkiisa maskaxdiisa ka keenay waanu ku mahadsan yahay boqolkiiba boqol geeridooda jeceliyo xubnayaha gumaysigu gumca u afaysto xubnayaha guntada xilka guud ka saaro xubnayaha guntada dhergaratadaho waxaan idinku yimid booqasho iyo bariido guud waana idinku bogaadinayaa runtii kaalinta wax ku oolka ah ee guud ahaan bulshada aad ugu jirtaan waanan ku faraxsanahay inaan idinla dhex joogo oo idin dhex fadhiisto oo runtii aad buu damiirkaygu ugu faraxsan yahay inaan dadkayga dhex joogo inaan dee walaaladii dhex joogo inaan kuwan adeerka u ahaa dhex joogo inaan kuwan habruudaagahayn dhex joogo inaan kuwii adeerkay ahaan dhex joogo intaanu xididii xigaalka wada ahaynba aan dhex joogo milicda aad fadhidaan ee muruqiinna aad maalaysaan maskaxdiinna aad ugu adeegaysaan ummadda waxay muujinaysaa runtii inaydun tihiin dad goba ninka guntaa waa ninka dariiqada taagan ee dadka shaxaadaya ee mashaqaystaha soomaaliduna waa tidhaa shaqa sharaf leh waxaan arkayaa oy muujinaysaa runtii inaad tihiin dad samir badan inaad tihiin farsamadii ummadda inaad tihiin warshaddii ummadda inaad tihiin dad kaalin wax ku wala dadka iyo dalkaba duruufta aad ku sugantihiin iyo barta dadka ugu adeegaysaan kukufka iyo dawladnimadeenna maalinba marxalad iskale laakiin dadaalkeennu waa socdaa waana rajaynayaa dal weyn markaynu noqonno in wax badan isbedeli doonaan inaad ku samirteen bartan inaad dhex fadhidaan inaad adeegaysaan inaad muruqiinna maalaysaan taasaa sharaf bartan berigii kaambeynka dee waanu ku riyoonnay riyaanu samaynay aad baynu u riyoonnay iskugu riyaaqnay laakiin maanta inuu ilaahay rumeeyey riyadeennii wax ilaahay loogu mahadnaqo wax ilaahay loogu mahadnaqo garabjooggaad muujiseen iyo kaalintii aad gasheen iyo kaalmadiinniba dee waka ilaahay karaamo inagu siiyey marka waxaan u baahannahay kow inaydu noqotaan dad faana oo baana oo bulshada maanta dee qiimo ku leh marka waa lanaga tiro badan yahay waana la hayb soocay dirirkaasi way dumeen markaa goobaha kaftanka markaad tagtaan waa la dheeraha Soomaaliland waa naga dhah ma tidii ka umada ugu laadaysa marka waxa aynu doonaynaa halgan
adag oo bir ka bilaabnay mayalkeennu waa bir halgan adag baynu ku jirnaa marka waxaynu ku dagaalamaynaa hadda hubkaynu haysannaa haybtii weynu dumay haybi ma jirto hubkeennu waa aqoonta halgankeennu waa aqoonta dhallinyaradeenna inaan wax barno carruurteenna wax barno wanaga nuuridiin 100 arday geynay wixii kale naga dhimanna waynu geenaynaa diyaar baynu waxaan ku gabagabeynayaa markaa inay idinku isku duubnaataan inaydun samirtaan inaydun wax badan dhexdiinna aad ka midoodaan insha allah dee aad iyo aad baad umahadsan tihiin waana idiin mahadnaqaynaa de waa idinku faraxsanaa marka hadiyadaan idiin wadayna dee intanu ku koobnaan mayso laakiin de way ballaaran doonta waa qalabkii maxay tahay aad ku shaqaynaysaan oo barkoodhadii galoofisadii bahladii birta markaad tumaysaan indhaha muraayadihii indhaha ad xidhinaysaan wixii kalena waa isagay maraya inankiinni baan ahay waa idinla joogaa waa idin dhex joogaa dee diyaar baan idin marka calala qalin aan soo noqdayoo aan idinla joogo oo duruufaha dalka yaalla iyo sixir bararka iyo dee iyo waxaad u baahan tihiin maalinba waxaanu qaban karayna halkanna waxaanu ku dadaali doonnaa inaynu ka shaqayno aynu hor samayno intanna waynu ka hawlgelinaa saa ugu dhaqsiyaha badan insha allahu